عبد الرزاق عثمان أوغلي كسلو qodobadan waxa ugu horeeyay qodobka koowaad laga bilaabo maanta waxa beeshu ay diyaar u tahay oo ay go'aansatay in ay si degdeg iyo isxilqaan ku jiro ay u dhamaystirto dhammaan turxaamaha magaha iyo wixii xuquuq loo sheeganayo beesha qodobka labaad waxa la sameeyay oo shirkan ka soo baxay aqal lagu magacaabo aqalka sare ee beesha Biidarays oo ka kooban 16 xubnood oo guurti ah waa golaha guurtida ee beesha waxa ay la shaqeynayaan aqalka Maxamuud Askar Jaamac waxa ay haystaan mandate ama kalsooni buuxda oo beesha dhexdeeda ah waxa ay kala shaqeynayaan dhammaan hawlaha ballaaran ee baahsan ee dhinacyo walba oo la taaban karo ee beesha sugaya 16 xubnood waa la magacaabay waana aqalka sare waxaana la shaqeynaya aqal Maxamuud Askar waxa looga furayaa guriyo meelaha ay degto beeshu waxa ayna magacyadoodii loo soo gudbiyay hay'adda qodobkaasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye laga bilaabo maanta oo shirkan qabsoomay qof alla qofkii beesha ka tirsan oo si xaq darro ah qof ku dila ama dulmi ku dila waxa la go'aansaday in la dhiibo oo gacanta loo geliyo qofkii xaqaas lahaa iyadoo aan lagu gorgortamayn sidoo kale ciidii disha qof beesha ka mid ah oo si xaq darro ah u disha waxa go'aanka beeshu yahay qisaas iyadoo talada kama dambaysta ay ka soo go'ayso reerka qofkaasi uu ka dhashay qodobka afraad waxa beeshu go'aan ku gaadhay in qurba joogta ku kala baahsan dunida dacaladeeda ee beesha ka dhalatay beesha lagu dhiiri geliyo loona soo jeediyo inay u soo noqdaan dadkooda si ubadkooda u badbaado ay shaqaabuur u sameeyaan khayraadka waddankana uga faa'iidaystaan qodobka ugu dambeeya waxa maanta laga bilaabo la sameynayaa sanduuq dhaqaale oo ah zakada beesha oo halka lagu ururinayo ayna mas'uul ka yihiin 16 guddiga golaha sare iyo caaqilku zakadaas oo laga qaadayo dadka ay ku waajibtay ee beesha ah looguna tabarucayo fuqarada iyo masaakiinta beesha walaalayaal intaa waxa ku dhan go'aamadii ka soo baxay shirka mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan rajaynayaa in go'aamadaasi ayna naga noqon wax afka laga yidhi ee ay noqdaan wax runtii taariikhda galo oo ficil isu bedela baan rajaynayaa sida aad noo sharafteen oo aad shirkan noogu sharafteen ilaahay ha idiin sharfo aakhirana adduunyadana ilaahay ha idinku sharfo oo maqaam fiican allah idin geeyo aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala allah idinku sharfo intaa kadib waxaynu isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa ayaynu isku dardaarmaynaa haddaynu ilaahay ka cabsanno wax walba ilaahay baa inoo fududaynaya waxaynagu adkaanayaa ma jiraan ilaahay cabsidiisaynu isu dardaarmaynaa ilaahay wuxuu aayaadkii mid ka mida ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waquuluu qawla sadiida ilaahay laba amar buu aayaddaa inagu amray mid waxa weeye dadka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyadow allaha idin abuurtay ka cabsooda cabsidana marka culimmadu ay sharaxayaan waxa weeye waa inaan lagugu arag wixii lagaa xarimay waana inaan lagaa waayin wixii lagugu faral yeelina inaan lagaa waayin weeye cabsida intaasay ku duuduuban tahay marka alla wuxuu leeyahay ilaahay ka cabsada amarka labaad ee ilaahay aayaddina lagu siiyeyna waxa weeye waad hadlaysaan marka aad hadlaysaan hadal toosan ku hadla oo aad ka fiirsateen oo hunguri marle ku hadla baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay haddaad labadaa amar fuliseen laba abaalmarinood ayaan aniguna idin siinayaa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yuslix lakum acmaalakum mid waxa weeye howlaha aad haysaan iyo acmaashiina oo dhanba waan idin hagaajinayaa wax idinka xumaanaya ma jiraan
waa markaad ilaahay ka cabsootaan hadalkana wanaajisataan wax walba waan idin hagaajinayaabaa ilaahay leeyahay talabaadna waxa weeye dembigiinaba waa dhaafayaa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u leeyahay kuwa aayaddaasu ka hadlayso ilaahay subxaanahu wa tacaala allah inaga dhigo dhammaanteenba allah idinga dhigo runtii markaan intaa kaga baxo oo wacdiga intaa ku badaayo shaksiyan haddaan cabiro aragtida aan ka qabay shirka kan si dhow baan shirkan anigu ula socday dadkii danaynayay ayaan ka mid ahaa inuu qabsoomo ayaan ka mid ahaa waad og tihiin oo waxa weeyaan gaaladu maanta way is urursanaysaa oo yurub baa 27 dowladood maraysa welina doonaysaa inay dadkana sii helaan marka inaguna inaynu ururo oo aynu marba heer gaadhno oo shirka kan kuwa ka sii ballaadhan ay dhacaan ayaa inagana laynooga baahan yahay aad iyo aad baan runtii anigu shirka kan u danaynayay aad iyo aad baa ilaahba igoga aan ugu faraxsanaa haddana sidii baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay haydinla qabto wixii aad isugu timaadeen aynu la foguraynay waxaa intaa aan isu taagay ay tahay waxba ma dhaafine in aan u mahad celiyo oo anigoo ku hadlaya afka hay-adda qurbo joogta iyo daljoogtaba ka kooban tirsigeeda iyo hawsheeda laga sheekeeyey inay isoo fareen ama ay nasoo fareen inay aada iyo aada idinka mahad celiyaan inta xoolaha dhaqata ee noo deeqday inay xoolahooda geel iyo adhiba noo huraan oo shirku qabsoomo iyo inta ka soo qayb gashay ee danahoodii uga timi ee danaynaysay shirka waxaanuna u ducaynaynaa wixii dhammaan ka soo qayb galay ee marti sharaf noo ah go'aamadii ka soo baxay reer waliba taageersan yahay oo qaato marka waxaan ugu horaysiinayaa iyadoo ay hadli doonaan qolyaha lagu macsuumay oo cuqaasha iyo nagala soo qayb galeen ay hadli doonaan waxaa ka horeynaya 15kan ergey marka ergeyga ugu horeeya Siciid Cawil Diriye waxaan ugu mahadnaqayaa go'aamadii ka soo baxay inay noqdaan wax ku ooda anaguna raalli baanu ka nahay haddaanu nahay odayaasha iyo qoyska Leebaan Cumar wixii go'aamo ka soo baxay waanu qaadanaynaa insha Allah billahi kariim saasaadna u mahadsantiin dhamaantiin ya baba mahadsantahay Siciid warsame Cusmaan sharafta iyo beel daraysta shirtay oo sida wanaagsan u heshiisay baan salaamaya iyo marti sharafta loo yeelay boqolkiiba waxaan idinku salaamayaa aayadooda qur-aanku leeyahay waan idinku salaamayaa arrintaas laga soo sheekeeyeyna haddii aanu nahay beesha reer Cabdalle waanu ku kalsoonahay ama beel daraysba sidaa weeye sidaasaan anigu ku dhameeyey baa aad iyo aad badan mahadsantahay cali warsame iminkana waxaa ku xigaa maxamuud baashe bare ciddii aad iyo aad baan u salaamaya uga hambalyeynayaa soo agaasintay u shaqaysay ku soo tacabtay ilaahay khayr ha idin siiyo halkaa ka sii wada baanu leenahay diyaarna waa u nahay madax maskax iyo maalba sidaasaan anigu shirka ku soo gabagabaynaya wixii ka soo baxayna waanu qaadanay waana dantayadii annagaana dee qornay waanu qaadanay diyaar baanu u nahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنو يرياه وحوي محمود حسن عبدي. إلهي وحبوري انتو هاديك غيب في غارفتيك كنول أياكو ذا حبيو هدي هذا النكينة هاديك عبسنايا نغياش إسلامك كابال العمين لهذيك أبها الدار إلهي وحبوري نارت الليسكو هذيكو الباب وغسبية أحفظها يكون كيدو كابال العمين لهذيك أبها الدار إلهي وحبوري عرفتيك كل الأيام كوذا حبيب هدي هذا النكينة سعبتي لسوكية
nagayeesha islaamka ka abaalicimayna adigaa mahaddan xoogaha waxay ku soo koobteen waa amar intaasaa leeday waa amar shirka go-aamadii ka soo baxay ee aanu ka kulannay ee muddada soo socday ee la lafaguray waa qaadanay anigu waa qoyska reer cabdi aadan cumar waa ka baxay waxaa ku xiga maxamuud bulaale weyrax go-aamada la soo saaray ee qiimaha iyo quruxda badan sida la soo agaasimay 6 qodoba laga soo fiirsaday maskaxda badan iyo caqliga badan lagu soo ururiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa raacnay marka haddii la yidhi waa oday magacaaban anigu waxaan ka tirsanay beesha reer maxamuud cumar sidaasaanu ku magacaabannahay sidaasaanu ugu kalsoonnahay waa raacnay xuseen waxaa ku xiga yaasiin maxamed cadde maanta magaceedu iigu horeeyo iyana waa salaamaya haddii aanu nahay beesha axmed cumar aad iyo aad ayaanu u waafaqsannahay uguna shaqaynaynaa qodobadii ka soo baxay shirka iminkana waxaan u yeedhayaa maxamuud omar cali shire shirkaas soo socday ayaamaha kooban ee beesha bihi darays ilaahay qalqaalisay hay-addaas ilaha fiicanna dhalay ilaahay mahadi weeye haddaanu nahay war anagu ma kala hadno dee dubba wasraacinayaa bayla waa sidaa abartaydaanu ku caalamaadna haddaanu nahay beesha bihina dubad waa raacsannahay waana ayidsannahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf ismaaciil kaatun hadalka la yeedhinayo waa oday bahamaha waa oday nin walba xuladkaaga aamin ilaaha maanta ay soo gaarsiiyey 15 oday oo bihi darays oo khaatumo yeeshay oo midoobay oo qaynuunimo iyo dastuur samaystay isoo gaarsiiyeen wuu mahadnaqayaa waxaa intaa ii raacda gobka kani waa gob khaatumo gob caanood miyaa loo bixi waa gob caanood caaqilkaa waa sheegay oo yidhi annagana waa nala ku dhaariyey horta haddaad mooto bihi daraysa moodaysaan sidaa caaqilku uu sheegay maxamed xasan falaalun uu dhalay cabdirasaaq waxa weeye waa dhaarsantihiin haddeer haddaad tihiin 15 oday ee bihi darays dhaarta aad dhaarateen ee isu dhaarateen ee isa saamaxdeen oo wax alla wixii idin dhex yihiin aad iscafideen waa inaad ka rumaysaan shirkan soo socday ayaamaha ee noo xidhmaya maanta go'aamada iyo arrimada ka soo baxay ee aad maqlayseen waanu qaadannay waanu ku shaqaynaynaa waana ayidsannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan nahay beesha reer guuleed cumar cabdilaahi waa carshi bini-aadmiguna ururkii khayrka qaba ee uu isugu tago wanaag buu ka dheefaa haddii uu wanaag isugu yimaado haddaanu nahay reerka reercigaa annaku aaminsannahay shirkaa marihii ka soo baxay waanu qaabilsannahay aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay hawltaa ka badan sii geli maayo warku hore ugu dhammaaday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iminkana waa jaamac xuseen xasan ciye shanfool waxaan ku salaamayaa salaanta sharciga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo soo qabaqaabatay shirkan aad baan ugu mahad celinaynaa intaa kadib haddii aanu nahay qoyska wacays cali mar haddii la yidhi qolo walba ha sheegto magaceeda midhihii ka soo baxay shirka waanu taageersanna waanu ku adeegsanahay saasaan ku qanacsannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu waxaa lagu bedelayaa yaasiin oo matalaya xubintii reerka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان سلام يا شركة ضدك كسو قيب قلي رقي الدمر أنا جوا ياسين محمد حسن بلي كان مدها قبل الشركة كنا هلا يا ما يعبيش عربي عمر الشركة وانو تغير سنة بقول كيف بقول وانو رشين دونا كوا وهر يكوا وطن بيلا والله iminkana waxaa u yeerayaa cabdirasaaq ibraahim cabdirasaaq cige warsame jirgan ka soco halkaa waxaana ugu dhammaaday ergadii intii joogtay waxaa maqan 2 qof baan u malanayaa marka iminka waxaynu gudbanaa marti sharaftii ee nagala soo qayb gashay shirka waxaa ugu horeeya oo aan hadda u yeerayaa caaqil cabdirasaaq maxamed falaalug dee maanta horta waxaad noogu yeedheen waa markhaati markhaati baad noogu yeedheen maanta yaa maanta waxaad noogu yeedheen markhaati waxaad leedihiin wixii hore qubnay beej cusub baanu wax ka bilaabaynaa annana waa idinku garab taagannahay waana idinku ducaynaynaa waana idinku bogaadinaynaa aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay waa beeshii la dugsanayey waa deegaankii waa dadkii lagu faanayey waxaynu nahay isku nool waxaynu nahay dad ehela waxaynu nahay dad aan xantooda cidda kale xamili karin xumaanteeda aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay waxaanu leenahay sidaa aad markhaatiga nooga dhigteen baanu annana markhaati uga noqonaynaa idinkuna waxaad ku tala gashaan inaad markhaati meel dhigteen oo kulligiin aad dhaarateen dhaar baad marteen haddeer ballan baad dhaar ku qaadeen ballan baad ilaahay waxaad kula gasheen inaad xalaal ku wada tihiin sidaa inaad sidaa isku raacsan tihiin sidaa ayay hormuud noogu noqonaysaa haddaanu nahay deegaanka xudun sidaa ayay ugu noqonaysaa beesha naalaye axmed maxamuud garaad ilaa dhulbahantaba waa dad hoggaana oo tiro badan oo lagu dayan karo wanaagga lagaga dayan karo waxaan leeyahay abtiyaal wanaagga inaanu dib inooga noqon aad beesha ku hoggaamisaan dalka ku hoggaamisaan beledda ku hoggaamisaan intaa halkaasaan kaga baxaya aad iyo aad waxaan u soo dhawo burburku ee dalka hadda laga camalaya uu sidaa ku noqday waxa weeye dawaareerka waayo dawaareerkii dalka hoggaankiisa ahaa dadka ugu badnaa deegaamada ilaalin jiray dhulka lagu joogay dadka keena dee ay magaranaysaa dee ay istaageersan jireen ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala muwaafaqadaa maanta ilaahay si inaanay dib u soo noqon wax walba waa inoo qabsoomayaan jannadii baa inoo soo ifbaxaysa haddaynu khilaafka iska saarno haddii xaqa la iska bixiyo xaqana in la iska bixiyo iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa cali diiriye maxamed oo matalaya caaqilkii iyo xuseen adan waxaa kale oo qodobada ka mid ahayd ninkii xaqdarra ku dila nin islaama waxa weeye go-aan baa haddaanu nahay bihi darisaanu ka qaadan waxba u reebi maayo nabadoon iyo qabiil odayaal midna waxba u reebi maayo taana maaha fariinaan geynaya waanu idinla qaadan waayo danta islaamka waxa weeye sharcigii maxamedeed ahaa baynu dee kitaabkeenu ka tagnay ha loo noqdo weeye inay dhaqan gasho oo ay sidaa loo qaatay u dhaqan gashana ilaahay waa ka baryaya waana ka rajaynayaa waa idin ducada alla ha iqbalo idinkan allah idin iqbalo ilaahay camalkeena ha subiyo ceebtana allah ha asturo ilaahay salaada hayna ka aqbalo ilaahay soomka hayna ka aqbalo ilaahay sadaqada hayna ka aqbalo ilaahu ducada naga aqbalo ilaahuna barakee ilaahu reerkan biir daray wanaagana isugu timi ilaahu kor u qaad ilaahu u yeed ilaahu kor u qaad ilaahu madan khayr qabana sii ilaahu madan khayr qabana sii ilaahu nacad noo kordhi ilaahu noo kordhi ilaahu nasiisa ilaahu noo siyaadi allahumma salli ala maxamed فكان كوها ضيق مكان وحنوية بيا بشير أحمد حيد يا شروينها
beesha bihi darays halkan shirka muddada ku waday haddeerna maantana ah gabagabadiisii mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan intaa uga gudbayaa deegaanka in wax laga qabto waa wax aada u fiican weeye aad bayna u wanaagsan tahay aad baana loogu dhawaaqay waana muhim deegaanku wuu ballaaran yahay waa dhul ballaaran deegaanka xudun sidaa haddeer dhuxushoo kale dhulka wixii dee fooqal sharac ah ee aan macquul ahayn ee aan muntafac ahayn aan wax laga marka lagu soo talagalo shirkan oo kale khudbadaha waa la soo diyaarsadaa ama waa laga soo fikayaa maskaxda la soo geliyaa waa igu soo kadiseen marka waxaan ii muuqanaysay in allaale intii meesha laga hadlay marka laga bilaabo go'aamadii bihi darays marka laga bilaabo shirka qoladii soo qabanqaabiso hay-adda ahayd marka laga bilaabo odayaashii dambe oo ka hadlay oo oqaasha iyo codkar kabal ahaa aada iyo aad buu shirku qurux badan yahay waxaa laga hadlayaana waa danta degmada iyo dadkeenna weeye waxaa fiican sidaa go-aanka loo qaatay in loo wada qaato sidaa bihi darays ula kala fushay inaynu degmada xudun haddaynu nahay dhammaan ula kala fulno shirku inoo gebagebo ninka waxaa soo xoreeya shirka caaqilka beesha bihi darays caaqil maxamuud askar jaamac kusoo dhowow waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay beesha bihi darays in aanu annaka iyo walaalaha iyaga aanu wada nool nahayba wixii wanaag ah iyo rabitaanka iyagu ku rumoobayo inaanu yeelno inaanu gamcaha isqabsanno waxa la degaan ma kala maarano isku daaq iyo guri iyo ceel baynu nahay wax allaale iyo wixii dhib inoo keenaya ama aynoo ku jiraan dhibi inaynu wada jir uga hortagno waxna uga qabanno wixii jira ee ina dhex taagan waxaanu ballan qaadaynaa walaalnimo iyo daacadnimo inaanu aynu ku dhammaysanno qodobka ugu dhibta badan ee had iyo jeer fidmooyinku ka dhashaan waa dhiiggii ninkii dhagarqaba ahaa dabada la marsado sida aad maqlayseen waxaanu ballan qaadnay ninkii gacan ku dhiigla ee xaqdarra ku dila naf islaama inaanu soo gudbinno oo ciddii xaqa u lahayd gacanta u gelino waxaanu ballan qaadaynaa inaanu reer ahaan wax allaale iyo wixii degaankeenna ku xun aanu meel iska wada taagno oo ka soo horjeesanno oo aynu tala wada jira ka yeelanno oo aanan ka idinka gadaalin waxaanu ballan qaadaynaa wax allaale iyo wixii danta caamilo ugu jirto inaanu hormuud ka noqonno mooyaane inaanaan hakran waad ogtihiin colaadda ragga aad garanaysaan ku dhintay ee ceelaf weyn iyo dogoble waxay sababteedu ahayd dhul la kala xidhxidhay oo la kala yeeshay inama aynu gaadhin in dhiiginaga dhex dhaco laakiin sida wax u socdaan haddii ay u sii socdaan fidma aynaan soo afjari karin baa inaga bilaabmay waxaana keenaysa inagu warshada ma lihin ganacsi kale ma lihin waxa aynu ku noolnahay waa duunyo la dhaqdo duunyadii haddii ceelkay ka cabi lahayd la yeesho jeexii ay daaqi lahayd la yeesho halkii ay ku baxsan lahayd haddii ay jiilaal dhaco ama abaari dhacdo la yeesho kala badbaadi mayno waxaanu jecelnahay oo aanu hormuud idinku noqonaynaa weliba sidii nafteenna iyo iyo duunyadeenna iyo inaga dhaqankeennuba aanu u burbureen hadday meeli fidmo ay laba reer dhex gasho dhaqan burbur bay keentaa oo aan daacad laga noqon aan ka feejignaano muddo dhoweyd oo aynu guddi samaynay waxaynu nihi wixii magaalada ku xun aan galno annaku isla maalintii baanu galnay haddeerna halkii bay naga taagan tahay
wax allaale iyo wixii inagu xun idinkala mid baanu hadday magaalo tahay hadday daaq tahay hadday tahay tolnimo kale walaalayaal tol aanan kala maalmi karin baa tihiin ogaada wax aynu isku xamanayno wixii xana ee xagga iyaga jira waa waxaad naga qarsateen laakiin waxaanu ballan qaadaynaa wixii aanu ognahay ee ama ogaano inaannu idinkala mid nahay daacadna ka nahay wax allaale iyo wixii aynu ku toloobaynona aanu diyaaru nahay laga bilaabo maanta hani hadhan wixii muuqda ee baa inoo dhaxa ku talagala annagu haddaanu nahayna saasaanu ku ballannay idinna talow nagu ogaada aan ku wada tashanno aan ku wada dhaqaaqno ficil baa lainooga baahan yahay oo dadka kan ilaahay weli amriga inooga dhigay ficil muuqda oo ay isku aaminaan oo kalsooni dhexdeeda mariya ayaa looga baahan yahay waana inay ku qancaan ficilka laakiin haddii aynu had iyo jeer magaalada ku shiro ama meel ka baxsanba ku shiro oo wixii aynu isla garanay ee ku wada tashanay aan lagu dhaqaaqin waxaa lumaysa kalsoonida laynagu qabo iyo taladeenna guud baa lumaysa waxaana ka faa'iidaya nimaan inoo danaynayn degaankeennu waa isku mid waxaanu kaloo halkan ka ballan qaadaynaa lafweyne laasacurtan dogoble awrbogays meel allaale iyo meeshii ay dhibi ka taagan tahay ama culays inaga saaran yahay inaannu idinka horrayna mooyaane inaanaan idinka dambayn annagu dhulka aynu degannahay dhul kooban marka magaalo ahaan la yidhaahdo ayaanu degannahay waxaanu ballan qaadaynaa dhulkaa aynu wada degannahay inaanaan meel la u jiidin si aanu dan gaara uga helno ogow haddii ay taladu noqoto tuulo meel ka samee aad ka heshid macaawime ah hadda waxa aad baryaysaa waa caydh inaan caydh ilaahay ku badin dhulka daaqa ah ka daaya degaanka dadka aynu deriska nahay reer xudunow waynaga xoolo badan yihiin eega oo u fiirsada oo dhulka mara innaga ugu duunyo yar waxa ay sidaasi ku dhacday dhulkii bay xanaanaysteen oo aanay oodin oo qodin oo dhisin waxaa laynooga baahan yahay inaynu sidaasoo kale aynu isla garanno dhuxushu waa ka mid baabi'eedu dhowr shir baynu go-aan kaga gaadhnay waa fuli waaye waxaana uu fuli waaye ciidamada aynu waad ogtihiin oo meelay kala tubtuban yihiin reer kala tubnaantaasina waxay keentay in la yidhaahdo waa reer hebel iyo reer hebel ciidankii wax geysta ee dhib geysta reer buu noqonayaa haddii aan laysu keenin oo la midayn oo cudud midaha aanay ku howlgelin hadalkeennu fuli maayo xuseen waa laga magacaabay annana waa leenahay laakiin cududdu idinka baahan yahay degaankiina waa inaad ku soo biirisaan cududda uu idinka baahan yahay ama inooga baahan yahay deegaan ahaan waa inaad ku soo biirisaan oo ay wada howlgalaan waxba ma kala lihin waxbana ma kala lihin haddaynaan inagu iskala saarsaarin kala qaybsanaanta iyo kala tilmaanta ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhexdeenna ka saaro wixii dana ee halkan laga sheegay wixii idinku xun ama qoonsi leh waa idinku noqonaynaa sida aad noogu ducayseen baanu annakuna u aaminay idinkana waxaanu ilaahay idinka baryaynaa sidaa aad noogu ducayseen ee noola qaadateen idinkana in ilaahay taladiinna toosiyo
dhammaanteenna ilaahay waxaan ka baryayaa wixii xaqa ee xalaala inuu inagu wada hago halkan waxaan uga maqnaqayaa cuqaasha nagala soo qayb gashay iyo reeraha aanu tolka nahay iyo culimmada ee maanta nagu soo sharifay shirkan tol jira ilaahay ha idinka dhigo sidaa aad noo soo sharifteena ilaahay ha idin sharifo waxaan kaloo halka uga mahadnaqayaa qabanqaabada ragga u galay u hawshooday u socday tacab badan geliyey waxaan halka uga mahadnaqayaa waayeelka iyo guurtida deegaanada kala duwan uga soo ambabaxday danta guud ee reerka muddadabna halka u fadhiyey taladiinnii iyo tusmadiinnii ayaa keenay in go'aamada tan la gaadho haddii aan talala lahayn oo go'aan wada jirala lahayn muuqaal ma jiro wixii iyo khilaafka waxaynu ka gudubnay oo ka bogsoonnay weeye sidaa aynu uga tashannay ilaahay dhexdeenna ha uga saaro waxaan halkan uga mahadnaqayaa iyana intii maskax iyo maalba gelisay shirkan gudaha rag baa xoolahoodii geliyey iyo tacabkoodii dabadda dad baa maskaxdoodii iyo maalkoodiiba geliyey waxaana hormuud u ahaa ururka haat la yidhaahdo maalla way ku bixiyeen wacyigelin fara badan oo qofa na way ku kaceen iyagana ilaahay waxaan ka baryayaa tacabkooda ma uu lumin maanta midho dhal buu noqday sidaa ay guntiga dhiisha iskaga dhigeen inay ka sii xoojiyaan mooyaane inaanay dib uga laaban hawsha ay fayteen waxaan aada ugu mahadnaqayaa oo aan jeclahay inaan mahadnaqo in adeertay saynab xasan bare oo ku caanbaxday inay had iyo jeer u faydato midnimada iyo magaca reerka ilaahay ha ku asturo fi aakhiraba sharafkaagana ha wanaajiyo tacabkaaga iyo diintaada iyo caqligaagana ilaahay ha garab dhawo intii hawsha la garab gashayna waxaan ilaahay uga baryayaa in adduun iyo aakhiraba ilaahay karaameeyo sida ay noo karaameeyeen tacabkoodii ay galeenna ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo iyagana waaye waxaan isna aan u mahadnaqayaa garaad saleemaan garaad maxamed garaad maxamuud oo sarmaayo jooga in dhoweydna hawl beeleed halkaa kaga xadfanaa oo nimankani ka soo qayb geli kari waayeen duca uu halkaa inooga soo tabiyeyna waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay inoo aqbalo isagana caafimaadkiisa wanaajiyo waxaa hadda naloo sheegay khadar xasan guure inuu ku geeriyooday magaalada laasacaanood maanta ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo isaga iyo maytaadkeenni iyo waalidiinteenna oo dhanba dhammaan ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay waxaan ka baryayaa kulankeenna iyo simaatinkeena inuu inoo barakeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa wixii buka in ilaahay shaafiyo wixii baahan in ilaahay kaafiyo wixii dhibban in ilaahay u feesjo ilaahay waxaan ka baryayaa kul iyo dhib bayna saarana inuu inaga kor qaado madarkay qabaannu ilaahu kaa barinay mid kadabaaya baannu kaa barinay mid dal iyo dad iyo duunyaba lagu qabo baannu ilaahay kaa barinay ilaahu waxaannu kaa barinay midaan diif iyo dacas iyo diihaal toonna loo marin ilaahu waxaannu kaa barinay midaan dabayl wax jiidha daad wax qaada iyo dibi wax gubta toonna lahayn ilaahayow saasaannu kaa barinay ilaahayow mid waasacaannu kaa barinay ilaahu saasaannu kaa barinay ilaahu muraadada iyadoo dhan noo aqbalo noo ajiib wixii aan maqsay